barasaabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergaabo ayaa si wada jira xadhiga uga jaray hotel casri oo shirkadda Daryeel ka dhistay magaalada Ceergaabo kaasi oo loogu magac daray Cadami Hotel oo ka kooban hurdo iyo maqaaxib waxaana hotelkan casriga ah maalgeliyay isla markaasina mulkiile ka Cismaan Warsame Cali Cadami oo qurbo joog ka soo jeeda gobolka Sanaag munaasabadii xadhiga jarista hotelkaasi waxa goob joogayaal ka ahaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo kuwa shirkadaha qaarkood qurbo joog iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda dhismaha ee Daryeel ee gobolka Sanaag محمود جامع عادن iyo محمود محمد عبد ديره oo kamid ah qurbo jooga gobolka Sanaag xafladan ballaaran aynu imika taaganahay aynu isugu nimi waxaynu ku furaynaa hotelkii Cadami Hotel ee laga hirgeliyay magaalada Ceergaabo oo shirkadda Daryeel ay ugu horeyn gurigii ugu horeeyay ama hotelkii ugu horeeyay farta ka jarto aha sida daraadeed waxaan ku wareejinaynaa mulkiilihii lahaa ee kharashka iyo hawsha galiyay isagana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay uu ka siiyo hantida uu galay faa'iido ka siiyo halkan waxaynu isugu nimay inaynu furno oo soo gabagabaaday oo dhamaaday hotelkii la magac baxay Cadami oo laga furay magaalada Ceergaabo waxa hotelka dhisay oo sida qurux badan aad aragtay ku farayareystay hay'adda Daryeel waxaana inoo furay maanta oo inala jooga halkan madaxdii gobolka ugu sareysay Somaliland iyagoo runtii si fiican ugu dhiirigelin doona dadka sidii wax loo maalgashan lahaa especially qurbo joogta marka haddana Daryeel waxay wareejinaysaa hotelka marka waxay ku wareejinaysaa mulkiilihii oo ah ninkan bidixda taagan waa Saciid oo ka wakiila aabihii oo hotelka maalgeliyay sidoo kalena waxa halkaas hadalka isaga dambeeyay isla markaasina soo dhaweeyay hotelkan casriga ah ee magaalada Ceergaabo laga hirgeliyay xubno isugu jira isu duwayaal madaxda ciidamada iyo gudoomiyaha shirkadda Golis ee gobolka Sanaag mulkiilaha soo kordhiyay waan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay jazaakallahu khayran ilaahay maaragtay hantidii aad gashatay ciwadkeeda ha ku soo celiyo nabadda hantida inta lagu aaminay ee la geliyay waxaan leenahay Allah barakeeyo kii maaragtay uu ku intifaaco mulkiiliha noqdo annaguna maaragtay aan horumarka iyo maxaan ku dhadaa laga soo daydo hotelkan maaragtay Cadami Hotel kii dhisay runtii hantidiisa geliyay hotelkan dhisay uu quuray waxaan Ilaahay uga baryaynaa wixii uu geliyay inuu Ilaahay ka siiyo iyo wax ka badanba u baahnayn meel aan habeenkii ku caweyno oo la isugu yimaado wax la isugu weydiiyo ismii ugu horeeyay aan heer caalami ah oo runtii gobolka maanta u horseeday gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaanu u baarigaynaa ugu hambalyeynaa mulkiilaha Cismaan Cadami inuu Ilaahay ka siiyo Ilaahay inuu mataqaanaa u barakeeyo ugu mahadnaqaynaa aan Cismaan Cadami oo runtii ganacsade had iyo jeer u heelan inuu magaalada maalgashada Cismaan Cadami sida hadda maayarku sheegayay halkan kaliya ma maalgelina ilaa 20 dhisme oo kale iyo beer iyo dhul badan oo magaalada ka dhisay oo ku maalgeliyay waxa weeyaan waa kii ugu dambeeyay kani waana hotel casri oo aad aragtaan sida loo qalabeeyay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina mulkiilaha Cadami Hotel ugu duceeyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay Allah u barakeeyo hantidii uu galay mid ka badan Allah ka siiyo waxaan naqirayaa Cismaan waa ninka qurbo jooga hantidiisa oo gol Ceergaabo ma hawlaalkan oo qura عندي بدن بمجال كرديسي عندي بدن بكلية جاي وأنا كقولي قرب شوك جاي أنا عرقابو قرب شوك كلنا محله والعثمان كودايدا ركاد برشلونة ويننا وأنا ودعينين حركة كشري هوتيل كان اللي تشوفنا أو عظمي هوتيل وهوتيل رنتي عادي أبو قيمة بدن وبلعضة اسمها وديسية يعني عادوا في عيني مركب هراء وحن لا هاي إلهي سبحانه وتعالى هكو بركيو هوتيل كان دستي عصري جاه قيمة بدن له الله كبركيه وهو الرتي أبو قيمة بدن وأنا اسمي كواد عصرية كديسان أما اللي جه هرجليو لسه مجال Ceergaabo وحنا لنا عاد بدرتي أنكو أمانينا الله كبركيه شوكبه كارهان كان حسطه إن أي كوديدان عظمي أو كريسا وحدثي gabagabadiina waxa shirkadda Daryeel ku wareejisay hotelkan cusub ee casriga ah wiilka u dhalay mulkiilaha hotelkaasi Saciid Cismaan Cadami iyadoo mas'uuliyiinta halkaasi ka soo qayb galanay ay soo kormeereen dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay hotelkaasi Barkhad Maxamuud Gedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo